warbixintani waxaanu ka soo aruurinay dad waqtiyo kala duwan lagu xidhay xabsiga weyn ee jeel ogaadeen magacyadoodana waxaanu u qarinay sababa ammaankooda la xidhiidha sanadii 1996 ayaa la aasaasay xabsiga dhexe ee dawlad deegaaneedka Soomaalida Itoobiya laakiinse ay dadku u yaqaanaan jeel ogaadeen kaasi oo haatan ay isticmaalaan guud ahaanba hay'adaha xuquuqul insaanka iyo sidoo kale dawladaha iyo ururada ka hadla dhibaatooyinka ka jira guud ahaanba dhulka Soomaalida ee Itoobiya ay maamusho xilligaasi 96 waxa madaxweynaha kililka ahaa Khadar Macalin Cali waxaana dhismaha xabsigaasi qandaraas lagu siiyay nin lagu magacaabo Ibrahim Xaad oo kamid ahaa ganacsatadii xilligaasi oo ugu dhaqaalaha roona deegaankaasi waxa magaalada Jigjiga laga fogeeyay jeelkaasi weyn ee jeel ogaadeen xilligaasi 96 ahayd 5 ilaa 6 kiiloomitir waxaana uu ku beegan yahay dhinaca qorax ka soo baxa ee toga faafaneed laakiinse hadda magaalada Jigjiga ayaa fiday oo gebi ahaanba waxa ay dhaaftay jeelkaasi iyo waliba deegaamadii ku xeeraa waxaana la oran karaa waxa haatan jeel ogaadeen uu ku yaala bartamaha magaalada Jigjiga haddaba dhageysta warinta yaab kale ayaa waxa ay tahay labada nin ee ninna uu qandaraaska dhismaha xabsigaasi bixiyay waa madaxweynihii kililka ee xilligaasi ee ninna uu dhismaha qandaraaska ku qaatay dhisida jeelkaasi labadaba waxa lagu xidhay markii dambe jeelkaasi weyn ee jeel ogaadeen qiyaastii ilaa iyo 50 askari ayaa habeenkii wardiyeysa jeelkaasi laba meel oo kala durugsan ayaana laga kala wardiyeeyaa gaadhayaha hore qiyaastii 1 kiiloomitir ayuu u jiraa xabsiga gudihiisa wuxuuna leeyahay hal albaab oo weyn oo u sii jeeda dhanka waqooyiga ku beegan haddaba maxay kala yihiin qaybaha jeelkaasi wuxuu u qaybsamaa jeelkaasi 3 qaybood oo ragga loogu talagalay iyo 3 qaybood oo dumarka loogu talagalay qaybta ugu hooseysa waxa lagu xidhaa dadka lagu soo qabto jabhadda ONLF in ay ka mid yihiin ama taageersan yihiin waana meesha ama qaybta ugu xun dhinaca ciqaabta marka la fiiriyo jeelkaasi iyo waliba ku jiridiisa qaybta dhaxana waa qaybta lagu xidho dadka rajada leh ee la aaminsan yahay in mar uun ay ka bixi doonaan xabsigaasi qaybta saddexaadna waxa lagu xidhaa siyaasiyiinta ganacsatada xubnaha maamulka ka soo shaqeeyay iyo waliba duqeyda waxaana ku yaala qaybtaasi meel yar oo masaajid ahaana oo lagu tukado dadka ka soo baxay xabsigaasi waxa ay sheegeen in halkii qol lagu xareeyo ilaa iyo 800 oo qof arrintaasi oo ah mid maskaxda amaba maanka caafimaadka qaba ka weyn xataa dhulka haltaaka oo bannaan lagama helo gudaha jeelkaasi sida ay cadeeyeen dhibanayaashaasi magacyadooda aan u qarinay sababaha ammaanka dartooda waxaana arrintaasi ay noqonaysaa mid ka mid ah masiibooyinka ugu waaweyn ee dunida guudkeeda maanta ka jira qaybaha dumarka ayaguna waa la mid kiisaska qaar xataa waxa la sheegay in dumarka caruurtooda lala xidhi jiray 7 sano ee aanu soo dhaafnay ma jirin maxbuus ay eheladiisu booqdeen horaantii toddobaadkii aan soo dhaafnay ayaa markii ugu horeysay loo fasaxay tiro cayiman oo dad ah in ay booqdaan dadkooda jeelkaasi jeel ciqaabeedka ku jiray muddada dheer wali warbixinteena ayaynu ku guda jiraa ee sanadii 2013 maxaabiistii xilligaasi xabsiga ku xidhnayd waxay sheegeen in maamulka bakoorada looga soo iibin jiray fooq dheere halka lagu magacaabo oo isla magaalada Jigjiga gudaheeda ah kadibna ay maxaabiista ku amri jireen in ay iyagu isku garaacaan haddii ay diidaan waxa lagu dalban jiray rag u diyaarsanaa in ay garaacista maxaabiista fuliyaan saacad kaste xilligaasi waxa loo yaqaanaa sida ay xaqiijiyeen maxaabiistii waagaasi xabsiga ku xidhnayd xilligii geerida iyo garaacista haddaba xilliyadii sanadahaasi ka dambeeyay ee aadka loo ugaarsan jiray mas'uuliyiinta ONLF iyo waliba xubnaha jabhadda ayay maxaabiistu sheegeen in maamulka xabsiga uu soo rogay in cunnada iyo biyaha laga jira gebi ahaanba maxaabiista waxaana 24 saac la siin jiray cunno hal mar oo qura ah ku filan taasi oo ahayd canjeera xabashi ama canjeerada loo yaqaano daafida oo la mariyay wax ay ku sheegeen widi
inta la xaqiijiyay 18 ruux ayaa markii la soo daayay ee biyo ay afka saareen ay naftu ka baxday amaba isbitaal loola cararay taasi oo markhaati cad ka ah dhibaatadu heerka ay gaarsiisan tahay iyo ciqaabta naxariis darrada ah ee dhibanayaasha jeelkaasi ku jira lagula dhaqmi jiray sheekooyinka naxdinta leh ee maxaabiistu ka sheekeeyeen waxaa ka mid ah gidibka ama biyo xidheenka halka loo yaqaano oo ah meel biyo xidheen ah oo ku taala duleedka magaalada Jigjiga waxaana biyo xidheenkaasi la dhisay xilligii uu dalka Itoobiya maamulayay Mengistu Haile Mariam ujeedada goobtaasi loo dhisay ama biyo xidheenkaasi loo sameeyayna waxa ay ahayd arrimo la xiriira dhinaca tacbashada beeraha balse markii dambe waxa ay noqotay goob dadka lagu xasuuqo laguna ciqaabo dhibanayaasha ku jira jeelkaasi weyn ee jeel ogaadeen arrinta kale ee naxdinta leh ayaa waxa ay tahay bisha ugu qabow sanad walba ayaa dadka inta la aruuriyo halkaasi lagu guri jiray waa biyo xidheenka weyn ee Jigjiga duleedkeeda ku yaala ee dadka halkaasi la geeyay waxa ay u badnaayeen dad looga shakisanaa in ay xubno ka yihiin ururka loo yaqaano Al-Shabaab hase yeeshee waxa dadkaasi qayb ka ahaa dad badan oo kale oo dambiye kala duwan ay maamulku u haysteen haddaba noocee ayuu ahaa jirdilka iyo weliba ciqaabta loo geysan jiray maxaabiista xabsiga ama jeelka weyn ee loo yaqaan jeel ogaadeen waxa ku yaala 8 qol oo 4 rag loogu talagalay 4 kalena loogu talagalay dumarka ma jirto cid nooga warantay waxa lagu muto gudaha qolalkaasi dadkii lagu xidhay markii aan arrimahaasi wax ka weydiinayna wayba naga aamuseen qaarna wayba ka naxeen markii aanu dib u xasuusinay waqtiyadii murugada iyo dhibaatada badnaa ee ay soo mareen qolalkaasi waxa lagu sheegay in kiiba uu si ciriiri ah u qaado hal qof oo bini aadan ah kaliya waliba dadka dhuudhuuban arrinta xusida mudan ayaa waxa ay tahay qofka kaliya ee naga ogolaaday in aan magaciisa sheegno waa Suldaan Fawsi Suldaan Maxamed Suldaan Cali oo xabsiga ku xidhnaa muddo dheer wuxuuna noo sheegay in 5 sano ee ugu dambeysay muddadii uu ku xidhnaa jeelkaasi lagu hayay keligii qol ciriiri ah oo uu ku qiyaasay wax ka yar 2 mitir waxa kale oo uu sheegay in muddo bil ah maalin kaste bakoorada ay ku garaaci jireen 2 nin ilaa ay ka daalaana ay garaacista ku wadi jireen wuxuu intaasi ku daray Suldaan Fawsi in loo diiday in uu qaato dawooyinka xanuunada dhiigkarka iyo macaanka taasna ay keentay in ay aragiisa wax u dhimaan xanuunadaasi oo uu u waayay wax daawo ah oo uu isticmaalo ilaa iyo maanta way ugu soo kacdaa jugtii berigaasi igu dhacday ayuu yiri Suldaan Fawsi mid ka mid ah dhacdooyinkii naxdinta iyo murugada badnaa ee jeelkaasi ka dhacay ayaa waxa ay tahay in uu jiray nin sidii bakoorada loogu garaacayay dhiig sii daayay laakiinse hadda nool oo aan magaciisa sababo ammaan dartooda u sheegaynin dhanka kufsiga dumarka ayaa la sheegay in uu joogto ka dhex ahaa jeelkaasi waana mid ka mid ah dhacdooyinka naxdinta iyo murugada badan ee jeelkaasi ka dhacay iyada oo ay dumar badan caruurtii ay ku dhex dhaleen ay ku dhex koreen sida dhawaanba laga arkayay sawir lagu baahiyay baraha bulshada oo madaxweynaha maamulka Soomaalida Itoobiya uu la galay amaba laga qaaday isaga oo xambaarsan wiil qiyaastii 4 sano jir ah oo hooyadii iyo aabihiiba ay ku dhinteen jeelka kaasi oo ay soo karisay haweenay kale oo jeelka iyaduna ku dhex umushay haddaba jeelkaasi maxaa loogu bixiyay magaca jeel ogaadeen xabsigaasi waxa la yiraahdaa xabsiga dhexe ee dawlad deegaaneedka Soomaalida sida loo bixiyay markii hore hase yeeshee sababta jeel ogaadeen loogu bixiyay ayaa ah maadaama dadka ku xidhan amaba jeelkaasi lagu soo xidhayay 60% in ka badan ay ka soo jeedeen beesha uu magaceeda xambaarsan yahay taasina waxa ay noqotay mid guud ahaanba haatan dunida caanka ah waxayna u badnaayeen dadka lagu xidhay ee beeshaasi ka soo kuwa lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen amaba ay taageersanaayeen ururka ONLF ee u dagaalama gobonnimada dhulka Soomaaliyeed ee ay Itoobiya gumaysato
waxa kale oo aad loo soo xidhi jiray sanooyinkii ugu dambeeyay macallimiinta dugsiyada quraanka iyo culimaa diinka kuwaasi oo lagu tuhmayay in ay al-shabaab ka tirsan yihiin amaba ay xiriir la leeyihiin ugu yaraan magaca waxa bixiyay dadka aan beesha ogaadeenka u dhalanin oo la yaabay tirada aadka u badan ee reerka magacaas leh ee madaxweynuhu ka soo jeedo kaga xidhan jeelkaasi weyn ee jeel ogaadeen su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay imisa ayuu qaadaa jeelkaasi weyn ee jeel ogaadeen madaxweynaha dawlad deegaaneedka Soomaalida Itoobiya ay maamusho Cabdi Maxamed Cumar Cabdi Ilay waxa uu munaasabadii Ciidul Fitriga sheegay in 22,000 oo ruux ay 3 sano ka hor ku xidhnaayeen jeelkaasi wuxuuna intaasi ku daray in 1,500 la sii dayn doono maalinkaasi inkasta oo uusan dhisma ahaan ka weynayna jeelkaasi 100 mitir oo dhan kasta haddana dadkii ka soo baxay waxa ay aaminsan yihiin in tirada maxaabiista halkaasi ku jirtay ay u dhaxayso 33,000 ilaa 35,000 oo qof waxaana jira dad badan oo xabsigaasi ku dhex dhintay sabab la xiriira daryeel la'aan awgeed toddobaadyadii u dambeeyay sida laga soo xigtay maamulka deegaankaasi waxa aad loo hadalhayay in laga dhigayo xabsigaasi weyn ee jeel ogaadeen masaajid laakiinse wali dad aan tiradooda la ogeyn ayaa ku jira sida ay xaqiijinayaan ila xogogaal ah oo ku sugan magaalada Jigjiga su'aasha isweydiinta mudan ee ka guuxaysa madaxa qof kaste oo arinta jeelkaasi la socda ayaa waxa ay tahay haddii masaajid laga dhigo jeelkaasi jeel ogaadeen miyuu ka hari doona magacaasi u baxay xabsiga